faadumoy faraadkayganaan fiiro kaa bariye in faseexad loo wada hadlay gobi ku faydaaye fidmadeeda xaajada adaa faraya shaalleeye filla naag taqaan waa ibliis furuq alluukeeye soomaalida inteeda maansada jeceli siday la socoto ismaaciil mire waa gabayaagii darwiishkana ahaa ee sayid maxamed iyo halgankiisiiba markii la xusuusto isagana lala xusuusto wuxuu ka mid ahaa dagaalyahanadii geesinimada ku tilmaannaa dulucda dagaalkii daraawiisheed raggii aaminay ee weedha hoggaamiyaha iyo wuxuu u xusul duubayaaba ay la hagaagsanaayeen markii aanu col duulinayn wuxuu madax u ahaan jiray koox wardoonka lagu jaaday oo dhaqdhaqaaqa ciidanka gumaysiga indhaha ku hayn jirtay kolba taladii uu maagan yahay dhab u soo ogaan jirtay dabadeedna iyada oo tifaftiran wadaadka u soo tabin jirtay waxay ahayd hawl dhib badan asii guulihii badnaa ee daraawiish u soo hoyday iyada lagu gaaray jabkii isdabajoogga ahaa ee ciidamadii ingiriiskana sabab horaad u ahayd col iyo duulaan wuxuu ku jiro oo fardihii uu ku gulfi jiray ay ka cawdaanba isaga oo aan is ogayn ayuu dhaafay xilligii barbaafnimada raggii ay isuguga dhasheenay dhammaan wada guursaday qaarkoodna carruuro kala baha ayayba leeyihiin isaguse dirirta gumaysiga mooye dumar iyo haayadoodba ma hayo ingiriiska sidee baa dalka looga eryaa weeye hamigiisu kolkuu hawl adag soo ebyaba tu ka daran baa loo diraa dharaaraha ka mid a xilligii ay daraawiisha cududda sheegatay oo dhul baaxad weyn lihi uu gacantooda galay ayaa ismaaciil iyo rag uu wata wuxuu sayidku u diray howlgal ciidan oo u baahnaa in iskumar degdeg iyo qarsoodiba lagu fuliyo waxay maqnaadaanba guultii laga filaayay ka badan iyo gacmo buuxa ayay la soo noqdeen warkoodii baa ka soo horreeyee sayidkii oo wixii ay dhigeen si weyn uga dharagsan ayaa ismaaciil oo markaas soo istaagay gudaha daartii faraad loogu soo geliyey dabadeedna markuu inta si wacan ugu warramay in la fasaxa uun uu sugaayo ayaa sayidku ku yidhi maandhow xilama leedahay ismaaciil oo su'aashu sikadiisa ugu soo dhacday ayaa ku jawaabay maya sayidii markaas buu yidhi maandhow waan kuu duceeyey gabar baanna ku siiyey berrina waa laguu meherinayaa sidaas ayuu ismaaciil ku guursaday faadumo dhoorre oo sida magaceeda ka muuqata aanu sayid maxamed dhalin walaashiina ahayn dhaqankii xarunta ka jiray ayaase u oggolaanayay nin kastaaba ha dhale gabdhaha daraawiisheed inuu bixin karo oo sida aabbayaashood uu isagu u guurin karo heble hebel sayidka ayaa bixiyey waxay gabadha iyo qoyska dhalayba u ahayd ammaan dheeraad ah yarad aqal mariinkii gabadha xoolo qoys lagu noqdo intaba sayidka ayaa ka xigsadayoo dhibaha dhaqaale ee raggu guurka ka maro faadumo guurkeedii ismaaciil mire kama marin hase ahaatee guur kadib siduu raggu reerkooda ugu xasilo isagu uguma xasilin habkii hore ee noloshiisa wax qumani iskama beddelin hadday faadumo la ahayd sida ragga kale inuu waaberigiina xoolaha iskinka aan la dibadbaxo fiidkiina uu la soo hoydo way ku gabsanay markaas baa haddiiba gabadhii walaac ku beerma nin xun ma aha imana nacbee muxuu iigu hakan la'yahay ayay keligeed in badan isweyddiisa waa runteedoo markii uu la joogo weji furan bay ku qabtaa wuuna koolkooliyaayo iyaga oo aan wax badanba wada joogin waa kii faaduma xabado ula baxay bilo kolkii uu maqnaadaba garab buu carraabo ku yimaadaa habeen ama laba kolkii uu hoydana waa ka jarmaadaa ama ka boqolaa marmar ayuuba ka bil maqnaadaa kolkolna 2 ilaa 3 sano ayayba muddadu gaadhaa markii uu yimaado inay aragta un mooye dhaqankiisaasu ma ahayn wax ay ka caban karto waxay og tahay inay ceeboobayso haddiiba la maqlo maqnaanshaha ninkeeda iyada oo ka hifanaysa waxaa lagu xaman lahaa nin jacayl iyo dirirta gumaysiga ee loo wada heelan yahay inay iyada fududahay waxay sidaas ahaataba galabtii dambe ayay daraawiish aqalkeeda meel aan ka fogeyn isku warsanaysa waxay faaduma ka ogaatay wax yar ka hor inuu ismaaciil xarunta soo galay oo daartii faraad uu sayidka la joogo haddiiba waxaa ku soo dhacday su'aal markii dambe la siloonaatay oo ahayd oo hadduuba taleex soo gaaray muxuu reerkiisa ugu soo hormari waaye
waa su'aal ay ku gabsadeen maxaa yeelay dhaqanka daraawiisheed kuma jirin ammaan duule soo galay inuu aqalladiisa ku hormaro waxaa xeer ahayd inta aan cid kale loo warramin in horta sayidka loo tago isagana la siiyo kolba wixii war ah oo ninka soo galay uu cadowga iyo cawaankiisba ka sido ismaaciilna wuxuu ahaa nin daraawiish ku barbaaray oo hiddaheeda yaqaane sidii ku habbooneed ayuu yeelay markii uu falaad balleeyey faaduma iyadu kabil waa gaari laga maqnaayee qalqaalo degdega ayay gashay ila xidkii uu seexan lahaa iyo ardaagii uu ku cawaysibi lahaaba way u saxartirtay kaydkii ay u dhigtayna way soo dhowaysatay cabbaar kadib iyada oo weylaalis cusub ardaaga ugu fidinaysa ayay xagga qorraxdhaca waxay ka bidhaansatay nin faras ku jooga oo dhinaceeda ku soo socda sidii inan aan qaangaarinoo aragtay nin loogu sheegay in la siin doono intay u xishootay ayay aqalkii daraq tiri isla markiibana waxay maqashay sharqan ay filanaysay waa ismaaciil oo ardaaga gadaalkiisa inta faraskiisii looshana kaga degay labada lugood dhulka la helay iyo waryaa reerka jooga oo ahayd su'aal ay iyana u tooghaysay annagaa joognay waa qofma iyo waxay isku dartay iyada oo tallaabo deggan dibadda ugu soo baxday indhaha ayaa la isku dhuftay isnabdaadin guud mooye markaan oo kale hadal kale ma jiro isgacanqaad isaga warkiisa daah labada in midba midka kale hor taagan yahay waa ku faraxsan yahay lase muujin maayo oo waa wax hiddihii la dhowri jiray aan meelna ku lahayn koob shaaha isaga oo inta cabbay weylaalistii isku kala bixiyey ayaa waxaa la soo joogsaday nin geeya ku jooga oo sayidka farriin ka wada ismaaciil bal ii soo joogsa ayuu yidhi isaga oo aan neefkii ka degin markuu u sheegay in sayidku uu caayana ismaaciil wax kale ma odhanna wuxuu ninkii weydiiyey ikhwaanow halkee baad u malayn in la ii diri doono dambaalwadihii baa ku jawaabay la iima sheegin waxaase la hadal haye ciidan aad waayeel ka tahay aniguna aan ku jiro oo daraawiishta beledweyne lagu xoojinayo sow ma aad maqal inuu talyaani banaadir ciidama ka keenay kadibna ay daraawiishi buulo birdarra kaga laysay maya ma uu maqal maantuuba burco iyo beer ka soo galay webi iyo wararka hiiraan sidee bay ku soo gaari karayeen waa sina waan kaa daba imaanay sii soco intuu darwiishkii ku yidhi ayuu hilhishay oo kabihii oo uu koldhow iska bixiyey haddana ilada faaduma oo hortiisa ka muuqata ayuu milicsaday war oo idil maqashay wayna og tahay hadalka sayidka hawraarsan mooye inuusan jawaab kale lahayn wuxuu ku yidhaahdo isaga oo garan la ayay iyadii u irdabixisay oo waddadii hadalka u iftiimisay waxay ku canaanatay isaga oo biro dhan ka maqnaa oo galabta uun carraabo ku yimid inuu haddiiba ka jaciirto oo isaga oo aan habeenba u hooyan uu reerkiisa ka tago inuu afadiisa u caqli celiyo hawsha uu kaga maqan yahay milgaheedana u sheegaa sow kuma habboona waxaaba suuragal ah inuu dumar kale kaga maqan yahay inay dareensan tahaye tuhunkaasna inuu iska darfiyaa sow lama gudboona galabtaas ayuu gebiyey gabayada caanka ka dhigay midkood ayuu tiriyey wuxuu ahaa nin gora kafuulka ku badiyee isaga oo aan doondoonin welina halkiisii taagan ayuu tixdan soo socotaa faadumo u mariyey wuxuu yidhi faadumooy falaadkayganaan fiiro kaa bariye in faseexad loo wada hadlay gobi ku faydaaye fidmadeeda xaajada adaa faraya shaalleeye filla naag taqaan waa ibliis furuq alluukeeye fakalloonka iyo gaarka badan feeyigaan bidaye faranjaan ilaalaynayaa foos ka soo baxa ee fadadaan wareegaa sidii farow ugaadheede ma furfuro habeenkii guntiga foora soo dhacay xeeryahan fadhaalaysan iyo foonka malabaysan fujaamadan la ii soo sido iyo faalac labankeeda fartaydaba anaan saarin baan fuuli looshana inaan adiga kaa fiigayo yaad igu filaysaaye furuuq igu dile naag kalaan faraha saarayb foolkii astaadkaan ku helay fayde iyo khayre faatixa markuu ii maro ya farax dhaqaaqaaye ma fakriyo shareecada ninkii faraqa haystayb dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebel